ساكن وصبح خميسة بشو إتهاي لحي طبعا صدق لما كل لما تنكا waxaan ugu talagalnay haddaan nahay xaruntii talasoojinta Soomaaliyeed inaan ka sameeyno warbixin sanadeedkii 2019 waxyaalihii soo dhacay iyo wixii soo maray inaan ka sameeyno mulaakhasna ka sameeyno saabka waxaan ugu talagalnay markii inaan soo saarno waraaq soo saarnay beebar kaga hadlay arrimahaas oo dhan si ummadda Soomaaliyeed aan u xusuusino wixii dhacay dhibaatooyinkii dhacay faa'iidooyinkii dhacay iyo xalintoodiiba sababta waxaan ku talagalnay maanta inaan arrintaas aan ummadda u soo jeedino dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan sida gudoomiyuhu sheegay gudoomiye guri anagu sanad cusub baa bilaabmay sanadka كل إن وحلسك يراها هو واجب وحي دعينا لقى سو تجينا وحلت المامو وحصوص عدنا كل وحي وحلاقة أوران كرينا وحلس سمين مركب الرئيس قد سنان أنا قدومي يو ديناري وامغرين مدة أدم بان نسوس ونغني أنا قارها نحن الرجيان أنا سنان هكذا ودي رقولة أنا كسو تجي ugu horeyso asxaabta iyo Toronto joogto Kaldeesa iyo muxuu ahaa Ibi iyo Banaadir taasna waxaan uga goleeyahay xawayaan sida ay xarunta la sijinta ay maaragtay xiriir toos u leeyihiin ama ka warqabka taa markaan ka soo gudbo maanta waxaan aad u jeclaysanay inaanu naraahno kelmadii ku haboona marka warku wuxuu ku kooban yahay hadda war saxaafadeed oo maaragtay ambassador dinar inoo akhrin doono laakiin Google dig waxaan uga dhigayaa waxyaalaha aan aad rabnay inaan uga hadalno waxa kamid ah sanadkan hadda bilaabmay iyo sanadka dhamaadkiisa kala wareegiisa sida uu wax walba ku qorshaysan hadii Ilaahay yiraaho waxay ahayd waa sanadkii doorashada la gelayay loona balansanaa in muxuu ahaa sida caadiga ahayd doorasho ay dhacdo waxaana ballanku ahaa in doorasho la gaarsiiyo oo dawladda hadda jirta ay ahayd ballankeedu qolobo waxay mar soo qabanaysay ay maaragtay in maamulka la dhiso qolobo waxay ahayd inay one man one vote gaarsiiso hadda kolay gabagabay taagan tahay arrintaasna inay adag tahay one man one vote ayaa muuqata laakiin waxaan u daynaynaa dadka farsamada waxaan marka xoojinaynaa waxay tahay qodobada ah doorasho hadii la aadayo doorashadu waxa ugu muhiimsan in nabad hada lagu galo nabad lagu aado tan xigtana dadka doorashada wada galaya inay ka imaanayaan maamul goboleedyadii marka hadii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wax ka taagtaagan yihiin iyadana way adkaan doontaa hal waa jirtaa matalaadeeda inay iska leeyihiin aqalka sare laakiin aqalka sare laftigiisu waxaan qabnaa in arintaasu ilaa hadda aan maaragtay sidii rabay aan uga soo bixin qalinaga ma aha laakiin hadda jir waa naga tusaalo aqalka sare ama shuruucdiisa iyo nidaamkiisu dhan baa ah in maamul goboleedyada ay matalaan marka hadii ay noqotay in muxuu ahaa doorashadii maamul goboleedyadii iyo dawladda dhexe ay kala taagan yihiin wada waxaan qabnaa anoo waan ku baaqaynaa qoraalkayga gudahana waa ku jirta in muxuu ahaa dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu la helo golo ay ku wada hadlaan oo maxay wixii jira si ummadda Soomaaliyeed loogu turo loogu naxo nidaamkii jireen aan maaragtay oo sharcigan soo dhiganay ahaa in wadanka la gaarsiiyo one man one vote si kale ku imaan mayso haddaan dadku wada jir iyo wada shaqayn aanay jirin marka halkaas fursadan ugu muuqataan xarunta tala soo jeedinta waxay tahay in la helo wada hadal degdeg ah oo ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay fariistaan oo laga wada hadlo sidii doorashadu u dhici lahayd iyo guud ahaan wixii uu khilaaf dhexdooda ka jira anagu diyaar baan nahay kay suurtagal noqotana waa dhex maraynaa kaliya maaha inaanu ku daawano
dowladaha ajnabiga oo nala joogo martida aynoo ah baan u daynaynaa inay inoo kala dab qaadaan wixii Soomaaliya arinta dhaxgeeli karo isku day karaan de waajib ka saarana inay arinta loo dhaqaaqo anagu haddaan inagu sameeynaana in la yiraahdo maxaa u sameynaysaana hadda waxaan nagu soo loogeynaa arintaas nagu jeclaada ama haddaan ugu nacaysaan anagu dadaal bay naga tahay waa sameeynaa tan xigtana waxa weeyaan waa amnigu doorashada waxa furo ah amni in la helo taa waxa ka sii horeysa siyaasad in la helo ku saabsan xagista wuxuu dhan waxa uu ah siyaasad baa ah in siyaasaddu ay hagayso amnigi siyaasad maxaa ahaa dhaqaalihii maxaan ku yiraahdaa iyo mujtamaca hawshiisa bulshada wax walba marka baybarka gudaheeda ayaan taa u deynaya marka waxaan leeyahay xarunta talo-soo-jeedintu waxaanu ku adkaysanay tiro wixii taariikh soo jirtayna kolley baybarkan taladeeda iyo waxeeda u deynaya laakiin anagu gaar ahaan intayadii waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad aanu leenahay wadanka hadda maqaamka banaadir ayaa sidaan maqlaynay saaran muxuu ahaa xarunta waxay ahayd golaha shacabka taalo oo dhawaan raba in laga doodo iyada laftigeedu waxa uu fiicnaan lahayd muddo laga sugayay muddo dheer baa laga sugayay kulli ragii halka fadhiya aniga kulli gudoomiyaha waxaan ahayn ragii consulkii u dambeeyay markii la dhisay ragii soo dhisay rag kamid ahaa waa ahayn markii qolada maxaakiintu iimaanayeen consul 69 baa la dhisay wax walba meel laga bilaabay lahayd iyadoo markaa wax dhisan yihiin ayaa mar wada halka lagu joojiyay waxaana markaa aan filayaa dhagaxtuur baa markaa ninka la yiraahdo gudoomiye dhagaxtuur hadda agaasimo guuda ayaa markaa ahaa duqa magaalada loo doortay iyo shaaway ku xigeen waxa laakiin markii halka ay ku joogsatay magacaabistii waxa la magacaabay gudoomiye tartan ayaa magacaabis ku yimi laakiin 69kii markaa waa baxeen marka waxaan ka wadaa marka maqaamka xamar la raadinayo wixii ay soo martay maqaamka xamar iyo waxa ay tahay ayaa wanaagsan oo ummadda shacabka inay ka wada hadasho laakiin baarlamaanka waxaan uga fadhinaa iyaga laftigoodu inay ilaa muddada waxay jireen ay dib u eegaan waxa maaragtay looga doonayaan inay eegaan marka waxaan qabaa waa arkay dad badan anaga cabashadana soo gaarsiiyay arinta gobolka Banaadir waan jeclaan lahayn inay haddii suurto galaysana duqa magaalada gudoomiyaha inaanu isaga laftigiisa arintaas aanu talo wixii aanu hayno aanu khasiino iskana aragno marka arrimaha wax ku saabsan yihiin anagu talo xaran soo jeedinay baanu nahay ummadda wixii talo oo ahaan isleenahay waa sax ayaanu soo gudbinaynaa marka sidaas aan maaragtay u deynaya qaybta dambe in muxuu ahaa ay waraaqda baybarka ama war-saxaafadeedka oo inoo akhriyo ambassador Dinaare بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudaha war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay marxaladda xasaasiga ee dalku marayo ee dhinacyada siyaasadda amniga wadooyinka xiran khilaafaadka ama isfaham la'aanta ka dhaxayso dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada barnaamijka doorashooyinka ee 2020 iyo 2020 iyo arrin soo shaabaxday dhawaan oo ku saabsan badda Soomaaliya oo ay jirto in 12 nautical mile in laga dhigo ay war noocaasi xuraan aan ku helnay arrimahaas maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadalno war-saxaafadeedkan oo uu xarunta talo-soo-jeedintu ay ku soo ururisay muddadii ugu dambeysay waxyaabihii dalka ka dhacay walaalayaal dalku wuxuu wajahayaa marxalad xasaasi ah oo kala guur ah waxaana sii dhamaanay xilligii loogu talagalay dawladda federaalka ee kumeelgaarka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay u hartay muddo sanad waxaana hor yaallo qodobo muhiim ah oo udub dhaxaad ay u tahay siyaasadda amniga doorashooyinka 2020 iyo 2020 dacwadda badda oo maxkamadda caalamiga taalo dib u eegista dastuurka iyo qodobo kale oo muhiim ah haddii aan ku hormarno siyaasaddu waxay qaabaysaa oo ay maareysaa amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaana ay sugtaa jiritaanka dawladnimo la'aanteedna waxay keentaa fashil soo wajaha qaybahaasi
haddaba waxaa muuqata inaanay jirin qorshe baahsan oo qeexaya arrimahaas aan kor ku soo sheegnay oo dhaqaale leh, siyaasad leh, doorashooyin leh, amni leh oo dhan aanan weli muuqan sidii loo maarayn lahaa. haddii aan soo qaadano dhinaca amniga, nabadgelyada ama amnigu wuxuu furo u yahay jiritaanka qaran kasto. la'aanteed ama amni la'aantiina suurtagal ma aha in la xaqiijiyo siyaasadda, dhaqaalaha bulshada iyo adeega bulshada ay u baahan tahay. walaalayaal, waxaan cilmi baaris iyo daraasayn muddo ku samaynaynay amniga dalka iyo waxa qabsoomay ilaa hadda. waxaa xaqiiqo ah in muddadii 3 sano ahayd ay dowladda federaalka ee hadda jirta ay si weyn isugu hawshay in ay wax ka qabato dhinaca amniga. waxayse runtu tahay oo aan la iska indhatiri karin inay jirto ammaan darro baaxad leh oo saamaysay guud ahaan dalka, gaar ahaan caasimadda dalka, oo ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan, dad badanna ay ku dhinteen, dad fara badan oo muqdisho ku noolna ay walwal badan ka muujiyeen. intaa waxaa sii dheer in waddooyinka magaalada muqdisho ay in muddaa xiran yihiin, uuna dhib badan ka jiro isu socodka dadweynaha ee laga xayiray waddooyin kala duwan, iyadoo mararka qaarkood ay dhacdo in haween ay heli waayaan in ay isbitaalka gaaraan oo ay waddooyinka ku dhalaan. dhinaca kale waxay waxyeello baaxad leh ay ka jirtaa dhinaca ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha wax dhigta oo iyaguna mar haddii waddooyinkii intooda badan ay xiran yihiin dhibaato badan kala kulma. waxaa iyadana xusid mudan in dhaqaalihii ganacsiga oo uu ku tiirsanayd magaalada muqdisho in uu hoos u dhacay kadib markay waddooyin kala duwan oo magaaladu ay xirmeen, iyadoo magaaladu ay ka muuqato dhaqaale xumo dhinaca dadweynaha ah, maciishadu ay marba marka ka dambayso ay ciriirisii galayso. waxaa iyadana xusid mudan in la xuso in muwaadiniinta Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsada, ay bixiyaan canshuurtaasi oo ay dowladda dhexe iyo dowladda hoose intaba ay ka qaadaan dadweynaha. hase yeeshee baahiyooyinka muhiimka ah ee ay qabaan ganacsatada ama ay qabaan muwaadiniinta kale ee ku nool magaalada muqdisho in aanan ilaa xad aanan la kafaalo qaadin. waxaan aragnaa in nadaafaddu magaaladu ay aad u liidato. waxaan aragnaa in waddooyinka magaaladu ay in badan oo ka mid ay burbursan yihiin. waxaasoo dhan waxay ahayd in dowladda hoose ee magaalada muqdisho ama gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba in arrintaasi iska xil saarto. walaalayaal, waxaa xaqiiqo ah oo muuqata in xukuumadda dhexe aanay haysan ama aanay lahayn qorshe kaabaya ama qorshe wax ka qabanayo dhinaca amniga, iyadoo aanay jirin isla xisaabtan dhinaca amniga. waxaana marar badan dhaco in tacsiyo keliya lagu koobo oo aanay dadka dhibaatadu ay soo gaartay amaba aan laga sii taxadirin inaanay dhicin dhibaatooyin kuwaas la mid ah, oo aanay dhicin mas-uuliyadda in layskula xisaabtamo, hadday noqon lahayd wasaaradaha amniga, hadday noqon lahayd ciidamada, cid kasta oo mas-uul ka ah dhinaca amniga in aan lala xisaabtamin. taasna waxay muujisay inay iska noqotay wax caadi ah in loo tacsiyeeyo lagana gudbo. haddii aan soo qaadano doorashooyinka, intaana doorashooyinka waxaan ka tegey in muddo aad u gaaban in taliyayaashii ciidanka booliiska, militariga, nabad sugidda intuba oo 4 mas-uul ama 4 taliya mid walba, booliiska 4 taliya, nabad sugidda 4 taliya, ciidanka militariga 4 taliya, intuba in muddo gaaban lagu bedelay oo xilka looga qaaday, iyadoo aanan la fiirin waayo aragnimada, iyadoo aan la fiirin tayada iyo wixii qaldan ee si fudud xilalkaasi muddo 3 sano ah ay isu badbedeleen min 4 sarkaal oo taliyaalka ah booliiska, nabad sugidda iyo militariga. taasna waxay ka mid tahay dhaliilaha aan dhahnay oo aan u aragnay inay tahay midda aan kaabayn oo aanan wax ka tarayn dhinaca amniga. waxaa jira in la qorsheynayo doorashooyinka 2020 2021 shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo 3 ilaa 4 Juun 2018 waxaa lagu heshiiyey in habka doorashada dalka ay noqoto nidaamka matalaadda isu dheelitiran ama nooca liiska xiran, proportional representation closed list uu ahaa,
golaha shacabka ee federaalka waxay magacaabeen guddi ka kooban 15 xildhibaan si ay dib u eegis ugu sameeyaan sharciga doorashooyinka oo markii hore ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha guddiga dib u eegista sharciga doorashooyinka loo xil saaray waxay baarlamaanka dib ugu soo celiyeen 24kii bishii November 2019 si xubnaha golaha baarlamaanka ay uga doodaan iyadoo dood dheer kadib oo maalmo qaadatay lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka loona gudbiyay aqalka sare ee hadda ay hor yaalaan sharcigii doorashada iyadoo markii hore ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen doorashadaas xiran ayaa sida muuqata gaar ahaan qodobka 11aad ee nidaamka doorashooyinka loo bedelay habka loo yaqaano horeeye guuleyste waa first past the post oo ah FBTB ama matalaadda kuraasta baarlamaanka ee aqlabiyadda ah majority system nidaamka la yiraahdo iyadoo kii hore oo proportionalka ahaa ama isu dheelitirka ahaa ee liiska xirnaa laga gudbay horena ay dawladda dhexe iyo dawladda maamulada ama xubnaha ka ah dawladda federaalka ee maamul goboleedyadu ay ugu heshiiyeen waxaa hubanti ah inkastoo aqalka sare leeyahay matalaadda dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka haddana waxa ay maamuladu cadeeyeen inaanan lagala tashan nidaamkan cusub ee baarlamaanka uu gudbiyay kuraasta aqlabiyadda baarlamaanka iyo habka ay doorashooyinka 2020 ay noqon doonaan waxaa hubanti ah in waqtiga haray iyo howlaha dhiman ay isqaadan karin ama isu dheelitirnayn baaxadooda marka la eego dhinaca nabadgelyada diiwaangelinta oo rasmiga ah iyo goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan sidoo kale waxa uu khilaaf ka jiraa heshiiskii ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada hore ay isugu afgarteen ee ku saabsan soo saaridda shidaalka batroolka taasoo maamulada qaarkood ay ka biyo diideen khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada in muddo waxaa sii kordhaya khilaafkaas waxaana muuqato in ay kala sii fogaanayaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubinta ka maamulka federaalka iyadoo aanay jirin wax xiriir ah oo wada shaqeynayd oo muddooyinkan dhaxsaday maamulada qaarkood iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi waxay keeni kartaa inay hakiso geedi socodka dawlad wanaaga good governance haddii aan helin wax xal ah oo ku saabsan sidii caqabadaasi meesha looga saari lahaa si loo hiigsado doorashooyin ka hirgala dalka iyo isbedelo la taaban karo oo uu guud ahaan dalka ku talaabsado xag amni kobaca dhaqaale iyo horumarinta bulshada sida aan la socono dib u eegista dastuurka waxaa u xil saaran wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee hirgelintiisa u xil saaran iyadoo ay dadaal wanaagsan ay muujiyeen labadaasi guddi aan kor ku soo xusay ayaa haddana waxa uu ugu jiraa hakad qodobka 54aad iyo qodobka 122aad ee laga sugayay dhinaca dawladda dhexe ama xukuumadda in ay wada xaajood ay kala samayso maamul goboleedyada iyo dawladdu ay ka wada sameeyaan si loo dhammaystiro meelna loo saaro dastuurka waxaa iyadana xusid mudan oo muhiim ah oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh arrinta ku saabsan badda sida aad la socotaan walaalayaal badda waxa ay dacwad ka jirtaa heeg maxkamadda adduunka oo dawladdan ka horeysay ay dacwad u gudbisay maraaxil kala duwan soo maray waxaan rabaa inaan xuso inay taariikhdu qorayso oo ay qeexayso qawaaniinta u degsan badda Soomaaliya in ay Soomaaliya leedahay 200 oo nautic mile cabirkaasi oo shuruucda soo baxday sanadkii 1973 ay dawladdii kacaanka ee Allahu naxariisto Maxamed Siyaad Barre ay soo saartay iyadoo awoodda ama dalalka awoodda ugu awoodda weyn ay marar badan isku dayeen inay wax ka bedelaan hase yeeshee sharcigaasi dawladdu ay ku adkaysatay taasoo Soomaaliyana ay xaq u leedahay inay lahaato 200 oo nautic mile waxaana soo gaaraya xuraan aanu ka helayno dadka dhexdiisa oo tilmaamayo in xusul dub loogu jiro sidii cabirkaasi badda wax looga bedeli lahaa oo looga dhigi lahaa 12 nautic mile haddii ay taasi dhacdana waxay dhibaato badan ay ku noqon doontaa oo ay wax u dhimi doontaa ama ay dhaawac ku noqon doontaa go'aanka maxkamadda ay Soomaaliya ka sugayso waxaanan soo qaadan karnaa qareenada Muna Sharman oo ka hadashay arrintaasi
oo soo daabacday qoraal ay arrintaasi kaga hadlayso waxayna tilmaantay in haddii badda laga dhigo 12 nautic mile ay ku adkaan doonto dadka iyo dawladda Soomaaliyeed in arrintaasi ay dhibaato ay wajihi doonaan oo xitaa wax ka bedeli karto xukunka ku saabsan badda Soomaaliya ee yaala Hague. walaalayaal markii aan qeexnay qodobadaas kala duwan waxaa noo soo baxday in aan annagu maadaama aan nahay xaruntii tala soo jeedinta aan u jeedino talo arrimahaasi wax looga qabanayo hadday tahay xukuumadda baarlamaanka iyo maamul goboleedyada intaba. si ammaanka wax looga qabto waxaan soo jeedinaynaa arrimaha soo socda. xukuumadda federaalka waa inay la timaado qorshe cad oo qeexaya sugidda amniga oo ka duwan kuwii hore, xaqiijin karana in dadka Soomaaliyeed ay helaan amni iyo xasilooni ay ku kalsoonaan karaan. labo, in shaqada sugidda amniga loo daayo hay'ad kaliya sida ciidanka booliiska Soomaaliyeed si loogula xisaabtamo mas'uuliyadda amniga. in la tayeeyo loona dhammaystiro wixii agab ah oo ay u baahan yihiin iyo sare qaadidda xirfadooda ciidannimo ee ay waliba ugu muhiimsan tahay dhinaca xuraanka ama intelligence-ka. in door wax ku ool ah ay ka qaataan sugidda amniga maamulka gobolka Banaadir isla markaasina loo diyaariyo dadweynaha qaab ay nabadgelyadu kaga qayb qaataan oo la yiraahdo community policing. in mas'uuliyadda ama mas'uuliyiinta kala duwan ee u xilsaaran amniga lagula xisaabtamo xil gudashadooda iyadoo loo madax banaanay gudashada xilkooda hase yeeshee ay noqoto mid xisaaba oo cid kasta oo xilkaasi gudan weysa lagula xisaabtamo. qodobka toddobaad, si loo xaqiijiyo meelmarinta doorashooyin guud ahaan dalka ka dhaca waxaa laga maarmaan ah in wixii khilaafa ee jira ee ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda federaalka lagu dhameeyo wada hadal. xarunta la soo jeedintu waxay isku howli doontaa in ay tagto maamul goboleedyada isla markaasina ay dhageysato dareenkooda ama wax ay tabanayaan si sidaasi la mid ana ay dawladda madaxdeeda federaalka ay la kulanto si ay isugu soo dhaweyso oo ay arrintaasi u noqoto looga furo wada hadal. maaha in la sugo dad ajaanib ah ama la sugo beesha caalamka la yiraahdo oo mar walba ay noqonayso in markaasi amar laga qaato. hase yeeshee xaruntu waxay soo jeedinaysaa in maamuladana ay ka soo durkaan meesha ay maanta taagan yihiin isla markaasina dawladda federaalka oo mas'uuliyad taas ka weyn ay saaran tahay inay wada hadalku ay iyadu lafteeda qayb ka qaadato. qodobka 8aad, dawlad goboleedyadu waxaan ku adkeynaynaa inay soo dhaweeyaan talaabo kastoo abuuri karta jawi nabadeed oo ayna ogolaadaan wada hadal dhexmara dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah maamul goboleedyada. beesha caalamka waxaan u soo jeedinaynaa inay door mug leh ka qaataan wada hadal ay yeeshaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda federaalka. waxaana ka saaran mas'uuliyad gaar ahaan ambassadorka ama safiirka qaramada midoobay u fadhiya ee wakiilka xogeyaha guud ambassador James Swan. qodobka 10aad, go'aanka gaaridda arrimaha badda Soomaaliya oo taabanaysa muwaadin kasta oo Soomaali ah, kuwa hadda nool iyo kuwa iman doona ama dhalan doona. marna waxaan tala ahaan ku soo jeedinaynaa haddii aan nahay xarunta la soo jeedinta in aan lagu degdegin wax ka bedelidda 200 ee nautic mile oo Soomaaliya ay xaq u leedahay muddana ay lagu difaacay mabda'as. waxaan ka digaynaa in go'aanka 12 mile looga dhigayo taasoo ay suurtagal tahay in ay saameyn ku yeelato go'aanka hor yaalla maxkamadda adduunka. si loo dhammaystiro dastuurka waa in xukuumadda dhexe ay wada hadal dhinaca dastuurka oo ay weli harsan tahay in ay la furto dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ee maamul goboleedyada. qodobka 12aad, si loo helo garsoor cadaalad ah waxaan soo jeedinaynaa oo ay dadkuna ay ku kalsoonaadaan waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo magacaabo golihii adeega garsoorka oo la'aantii aanay howlaha garsoorku dhaqaaqi karin. ugu dambeyn, dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinaynaa inay dhammaystirto dhismaha maxkamad dastuuri ah oo inta waqtiga ugu hare ay isku daydo in ay maxkamadaasi dhisto taasoo wax weyn ka tari doonto dhinaca garsoorka. wabillahi tawfiiq. aadaan idinkaga mahadcelinaya dhegeysigii aad dhegeysateen dadka shacabka Soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha. Assalaamu calaykum.